kow marka ugu horeysa anigu weligii waan arki jiray gabdho qurux tartamaya oo macnaha waxa la dhihi jiray gabdhahan qurux bay u tartamayaan laakiin weligii ma arkin wax maskaxaysan uu qabiil ku jiro oo laga dhex raadinay gabadh qurux badan dadka qaar waxay isleeyihiin dirista qabiilkan uu ka hadlay maxaa waaye Soomaali baan nahay moogta si fiican masku naqaanaa soo siinaa soo yar baan ku siinaa marka la leeyahay Mrs Hirshabelle maxaa maskaxda ku soo dhacaya qabiil dad baa ka dambeeya marka lagu leeyahay Mrs Somaliland sidoo kale marka lagu leeyahay Jubaland maxaa sugaysaa marka lagu leeyahay Galmudug maxaa sugaysaa waa isnaqaanaa Soomaali baan nahay anu Portuguese ma moogta si fiican ma ku aqaanaa moogta marka maskax baa la sameeyay oo waxa la abuuray link meel lagu dul dhufanayo aan ku dul dhuftay waxaan isdhahay balniyo midoo qurux badan iskaga food gare oo bal de horumar gaadhade oo taageer baan islahaa kadibna waxa la weydiiyay lacag waxaan ogaaday markaa dadkan waxaan soo abaabulay muhiimadoodu inay ahayn ba Mrs Soomaaliye ay muhiimadoodu tahay inay lacag helaan waraa halkii qof kun qof baa u food gareeyay halkii qof macnaha qofkii ugu koreeyay adu 1200 uu maraa haddii hal dollar loo diray $1 waa gaaraysaa haddii $20 $10 $5 $3 la dirayna way ka badan tahay waa halkii qof baan ka hadlayaa kun buu marayaa kun foot marka Soomaali oo loo fikro waxa la isdhahay Soomaali sidee lacag looga qaadi karaa haddii gabdha qalayla meesha la soo istaajiyo in lacag siinaysa ma jirto waxaan sameeynaa gabdhaha waxaan ku lareynaa meesha ka soo jeedaan marka maskaxdaan sameeynaa si aan lacag fiican u helno waxaan ban abuureynaayo waxaan dhahaynaa gabadhan waa Mrs Galmudug Mrs Jubaland shut up and take my money haddii aad rabtid Mrs Soomaaliya in la doorto waa in uu qofku markuu gabdhaha arko tii uu is ilaahdo way qurux badan tahay ka doorto ma qofku markuu sawiraan saan u eego inuu ilaahdo okay gabadha ka soo jeedo meeshan ka soo jeedo marka tan baan dooranayaa arintaasi ma aha qurux doorasho marka qof baa dooranaysa meeshiina ka soo jeeda gabdhaha la aqoon meeshii ka soo jeedaan oo qabiil iyo qurun lagu dooranayn meesha noo keena anaguna gabadhii aan islaano qurux badan tahay aan ka dhax dooranana ma qalad baan sameeyay waa maya laakiinse qof walba Soomaaliya dhiig baa qaadaya wuxuu isleeyahay meeshan baa ka soo jeedaa gabadhan iskaga codee sida TikTok kale game noqonaya marka qabiil baa lagu ciyaaraa ana hadii lagu leeyahay Cabdirasaaqo wax kala dooro bal anuunan eegin Hirshabellada iyo meeshii ka soo jeeda iyo waxay tahay anuunan eegin oo macnaha ka hadlay dookhayga iyo sidaan quruxda u arko anu number 1 waxaan siin lahaa gabadha magaceeda la yiraahdo Simran oo Mrs inaan Hirshabelle sheego waa muhiim si lagu garto deelan magaca weyn baa Mrs Hirshabelle ma Mrs Simran ma magaceeda lama sheegaya ay xaq u lahayd hooyada aabbeed ula bixin marka gabadhan Mrs Hirshabelle lagu qoran tahay aan number 1 siinaa okay number 1 iyadan sii number 2 waxaan siinaa Mrs Jubaland yes number 2 aan sii number 3 waxaan siinaa Khaatuman sii ku yar wareersanay laakiin Khaatuman sii Somaliland ma ku xigsiinaa Galmudug iyo Koonfur Galbeedna hal bal isku siin lahaa iyaga ma kala saarayo marka aan Cabdirasaaq ahaan waa kaasa u kala dooran lahaa laakiin aan hadaan igu leeyahay wallahi gabdha keen wallahi kulli iqraal Patros iyo Ashwaaq Siraaji dadkaas keen la marka runka hadlade ya kuwa badan oo chaarkayga ahaan jiro qurux badana way jiraan kuwa kale oo xaggan degan oo qurux badan way jiraan kuwa kale oo Kenya degan oo qurux badan way jiraan kuwaas aan soo ururin lahaa laakiin maadaama oo dadkan meesha la soo xulay dadkan si kale qurux badan yihiin ani way iga haysatiin marka walaalayaal waxaan qabiil hay nooga dhigina qofku waa inuu freedom dareemaa waa in aanu gabdhaha kala dooran karaa aanu green meesha ka soo jeedaan haddii kala aniguna qabiilkayga u soo tartami ayuu kaana dib u soo tartami si keeno murursade maxaa la qurux qabiil ku yahay anagana han la kala doortade